tan iyo markii dowladihii kumeel gaarka laga gudbay ee dalka uu yeeshay dowlad rasmi ah ayaa waxaa bilaabatay in mashaariic kala duwan dalka Soomaaliya lagu maalgashto. bangiga IPS International Bank of Somalia ayaa waxa uu ka mid yahay bangiyada u shaqeeya qaabka sida caalamka bangiyadooda. International Bank of Somalia wuxuu ku saleysan yahay standardka caadiga West Bank marka gasho sidoo shaqeeyo iyo kan u shaqeeya. Dr. Xasan Yuusuf oo ah gudoomiyaha bangiga IPS ayaa jaaliyada Australia qaybaheeda kala duwan u sharxay qaabka uu u shaqeeyo bangiga IPS. bangigu wuxuu ku saleysan yahay public shareholding company. macnaheedu waxa weeye shareholderka ummadda oo dhan buu u furayo wada leh dibadda gudo ajnabi qaran ajnabi baa subscription ku sameyn karaan so far dad Soomaaliya iskala waxa ku jira marka bangigu wuxuu ku saleysan yahay shariicada islaamka dabcan Soomaaliya maanta waxaan shariicada ku saleysan waa adag tahay inay ku dhex macaamulaan. waana bangigii ugu horeeyay ee burburkii kadib adeeg noocan oo kala ka hirgeliyo dalka sida uu mar kale uu sharxayo Dr. Xasan. ومركي يجوا هرسي سوماليا مدة أفريقيا لا تصنع كبدن وبنجي وسوماليا توصل عو صادره كصادره سوماليا تبدنا وجودره أما تبدل لقدره لعيتها وتوصل وضعه 24 years كبدن. سؤال kala duwan ayaa la weydiiyay gudoomiyaha waxa sidoo kale kamid ah su'aalihii la weydiiyay bangigan IPS muxuu kaga duwan yahay bangiyada dalka ka jira. marka waddan ka hadlo bangigu muxuu kaga duwan yahay kuwii hore u jiray ama waxa jira hadalka weyn ayaa laga fahmaya marka mid ka mid ah soo sheego bangigu waa ka kaliya imka soo far dunida waxna u diri kara waxna soo diri kara talaabada bangigu leeyahay waxa weeye waa deposit number 3 waxa ku qoran call and time deposit macnaheedu waxa weeye lacag baad dhiganaysaa 1 milyan baad dhigtay sana kadib 100,000 110,000 90,000 faa'iido lagu siinaya hantiilayaasha bangigu iyo maamulayaasha bangigu waa laba shay kaliya dadka maamulayaasha waxa bangiga kuma leh hantiilayaasha ma maamulaan bangiga waa separate kaliya. waxa bangigan himiladiisu ay tahay inuu dalka ku soo kordhiyo adeegyo caalami ah waana mashaariic kala duwan sida dhismayaal shopping centero waaweyn guryo beero iyo kalluumaysi. marka wuxuu ku saleysan yahay shariicada islaamka wuxuu ka kooban yahay qayb investment maalgelinta dadka xooluhu oo kor u kacaan. 7 bilood ee uu jiray bangigan ayaa durbaba waxa xisaabaad ka furtay dad aad u fara badan oo ku nool dunida dacaladeeda. qofkina account ka furan karo lacagna lagu soo diri karo isagoo halkan joogo Australia account ka furto oo direct ku tagiso so far ilaa in ka badan 50 dal ayuu bangigu u diray toos. maadaama aad fariin u sido jaaliyada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool gaar ahaan reer Australia nasiib ay u yeesheen inaad u soo bandhigto qaabka u shaqeynayo bangigan ee laga furay dalkii hooyo maxaa kaaga baxay halkan waxa ka baxay didiilo badan oo ay dadku ay doonayaan si ay uga qayb qaataan dib u dhiska wadanka Soomaaliya dadku waa jecel yihiin wadankooda inay dhistaan waayo Soomaaliya Soomaali ma dhisan karta gurigaaga ninka lama dhisi karo sida ogeed IPS-na uu danaynayo inuu soo bandhigo adeegyo kala duwan oo bulshada Soomaaliyeed intifaac u soo kordhinaya iyo xoogsi dhaqaaleed. aad bay dadku ula dhaceen sababtoo ah wali dadka waxa ka dhaadhicila bangi standard international ku shaqeeya inuu Muqdisho ka furan yahay oo adeegyada markaa bixiyana uu la mid yahay kuwa kale oo caalamka ka jira sidoo uu adeego ay markay ay uga faa'iideysan karaan. dabcan Soomaalida caawa halkan timid meeshan aad arkaysaan oo boqolaal Soomaaliya ka soo qayb gashay kulankan ayaa loo bandhigay qaabka ugu sahlan ay u maalgashan karaan dalkooda iyagoo u maraya wadadii ugu sahlaneed ee uu u jeexay bangiga IPS. Ibrahim Umar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia.